muddadii uu xilka hayay ururka ardayda Soomaaliyeed 2010-2011 waxa uu ku tallaabsaday guulo wax ku ool ah. waxaan idinku soo gudbinaynaa qaybtani waxyaabaha uu qabsoomay muddadii uu jiray. waxa ugu horeysay oo ururka ka qayb galay barnaamij loogu magac daray Ummatic Week ama isbuuca iyo dhaqanka kaasoo ay ka qayb galaan dhammaan ardayda wax ka barata jaamacadda UAA wadamada kala duwan ay ka kala yimaadeen. ururkana waxa uu matalayay wadanka Soomaaliya waxay goobta ka sameysteen aqal Soomaali muujinaya hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya. waxay kala soo bandhigeen cuntooyinka Soomaalida dhaqanka u leedahay waxaana ka marnayn cayaartii hidaha iyo dhaqanka. waxa kale ururka uu martigeliyay furitaanka xafladda ururka ka isu taga ardayda Soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogaan qaybteeda Asia. waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan. hadal kooban oo goobtaasi ka jeediyay gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed Mudane Cabdisalaam Maxamuud ayaa soo dhaweeyay. waxaa mahadcelin mudan dadkii barnaamijkan ka soo shaqeeyay ee u soo safray wadamo dheer nooga yimid kaliya si ay noola wadaagaan walaaltinimada iyo afkaarta saliimka ah ee ardayga Soomaaliyeed ku jirto. waxaa xigtay kulamo ay ururka ardayda Soomaaliyeed la soo qaateen gudoomiyaasha iyo qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha UTM UTHM iyadoo qorshahoodana uu ku jiro inay la kulmaan jaamacadaha kale ee ku yaala Malaysia kuwaas oo wax ka bartaan ardayda Soomaaliyeed si ay isaga warqabaan. ururka ardayda Soomaaliyeed waxyaabaha aan la iloobi karin oo uu qabtay ayaa waxa ugu weyn la dhihi karaa xafladii xuska munaasabada 50 guuradii ka soo wareegtay markii gumeystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska ay xornimada ka qaateen Soomaaliya isla markaana ay dhalatay jamhuuriyadda. waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo isugu jiraan arday iyo shacab. waxaase laga xusi karaa safiirka Soomaaliya ee u fadhiya Indonesia Safiir Colow. hadal kooban oo goobtaasi ka jeediyay ayaa safiirka ku dhiirigeliyay ardayda inay wax bartaan isla markaana ay dib ugu laabtaan dalkooda. dadka Asia wax ku bartay gudaha iyo banaanka Soomaaliya markay baasaboor Soomaaliya waxaan idin rajaynayaa meesha cabsi badan ma jirto. waa lagu noolyahay Mareykanka 20 sano ku noolaa idinka cabsi badnaa ayaa tagay. wadanka waa idin baahan yahay, wadanidiinu u baahan yahay, aqoontiinu u baahan yahay. ina wadanka wuxuu u baahan yahay honest, wuxuu u baahan yahay nin nadiif ah. uma baahna aqoonyahan qabiil ku shaqaynayo, uma baahna aqoonyahan qabiil ku shaqaynayo, uma baahna aqoonyahan raba jeebkiisa inay wax galaan guriga ka tago. u baahan yahay aqoonyahan muxuu ahaay ururka naftiisa. marka waxaan idin rajaynayaa muxuu ahaay ardayda wax ku barata hal shay inaad midnimada ku dadaashaan. waxyaabahan qabaylkana iska dhaaftaan waa nasiib darro. waa nin dhalinyaro ah oo jaamacad dhiganaya inuu ku fikiro qabiil waa qurun. qabiil haddii laga shaqeeyana dowladnimana ma jirayso, meesha aan ku jirnana kama baxayn. marka in aanu muxuu ahaay aad noqotaan horseedaha ummadda Soomaaliyeed aad noqotaan kuna dadaashaan inaad focus saartaan waxa aad baranaysaan. Soomaaliyana dib ugu noqotaan. Soomaaliya waa idin baahan tahay. intaa kadib ururka ardayda Soomaaliyeed waxa uu tallaabay markii ugu horeysay inuu safar dalka dibadda u baxo oo uu la soo kulmo ardayda wax ka barata wadanka Thailand iyadoo halkaasina si diiran loogu soo dhaweeyay isla markaana soo helay tirada ardayda Soomaaliyeed wax ka barata wadanka Thailand iyadoo isku celcelisna tiradu ay gaarayso 51 arday. waxaana intaasi u dheeraa inay qayb ka noqdaan arday ka ama baxday jaamacadda UAA oo wadamo kala duwan leh kuwaasoo isbuuc barayaal ka ahaa dugsi sare ee wax ka bartaan arday muslimiin ah oo ku yaala wadanka Thailand.
dhammaan waxyaabaha ay qabteen ururka ardayda Soomaaliyeed ayaa waxaa saldhig u ahaa dhaqaale waxaana intaasi ka caawiyay qaar ka mid ah shirkadaha Soomaaliyeed ee ka howlgala Malaysia ayagoo ay mudan yihiin mahad gaar ah dhammaantooda waxaana ka mid ah shirkadahaasi xawaalada Dahabshiil Olympic Amal Qaran Mustaqbal Amaana waxaan sidoo kale ka marnayn dugsiga lagu barto luqadda Ingiriisiga ee Elite Language Center ugu dambeyntii maanta oo u fadhino munaasabada ciida ayaa ka mid ah waxyaabaha uu isku howlay ururka inuu qabto waxaana dhammaantiin idin leenahay nagula ciida farxad iyo baraare ciid wanaagsan mahadsanidin